waa mar kale iyo barnaamijkeena tala dhakhtar waxaynu kaga jawaabi doonaa su'aal odhanaysa maxaa keena dhagaxa xameytida ku samaysma ee loo yaqaan gallstone. Xameytidu waa xubin ku taala dhinaca midig ee qaybta sare ee caloosha. Waana xubin sida kiishka oo kale u samaysan. Shaqadeeda ugu weyn ay tahay kaydinta iyo soo deynta dheecaanka loo yaqaan bile waqti munaasiba si dheefshiidka loo fududeeyo. Xameytida waxa ay ku xidhan tahay beerka iyo xiidmaha yar qaabta xanaa kuwaasoo wado u ah dheecaanka bile. Dhagaxaantan ayaa ku samaysma xameytida dhexdeeda ama dhuunta xameytida ka soo baxda. Qiyaastaas dhagaxaantan ayaa noqon kara mid ciidda oo kale ah, mid la mid ah ukunta oo kale. Dhagaxa ku samaysma xameytida ayaa noqon kara hal ama ka badan. Waxay isugu jiri karaan dhagaxyo yaryar iyo kuwo waaweynba. Dhagaxa xameytida ayaa waxa weheliya xanuun soo booda gaar ahaan dhinaca sare ee midigta caloosha, taasoo ay ka dhalatay dhagaxaanta oo xidhaya marinadii marayay bile-ka. Maxaa sababa dhagaxa xameytida? Inkastoo ayna jirin sababo gaar ah oo keena dhagaxa xameytida inuu samaysmo, haddana waxa la aaminsan yahay in isu dheelitir la'aan ku timaada walxaha dheecaanka bile-ku uu ka samaysan yahay inay keenaan dhagaxa xameytida. Waxa dhacda in dhagaxa xameytidu ay samaysanto haddii dheecaanka bile-ka ay ku badan tahay maadooyinka qaar sida cholesterolka, bilirubinka, ama marka cusbadu ay ku yar tahay dheecaanka. Sida aan loo ogeyn waxa sababa dhagaxa xameytida, sidaas la mid ah ayay cilmi baadhisyahanadu ayna u fahansanayn waxa sababa isu dheelitir la'aanta ku dhacaysa dheecaanka bile-ka. Laba nooc ee dhagaxaanta xameytida ee samaysma waxay kala yihiin kuwa cholesterolka oo loo yaqaan cholesterol stone iyo kuwa midabka leh. Waxa dhacda in dheecaanka bile inay ku adkaadaan xameytida gudaheeda, taasoo keenta dhagaxa xameytida ku samaysma. 80% dhagaxa xameytidu waxay ka samaysan yihiin cholesterol, halka 20% ay ka samaysan yihiin cusbada, calciumka iyo maadada bilirubinka. Kuwana waxa loo yaqaan dhagaxaanta midabka. Dhagaxyada cholesterolka midabka ay leeyihiin badana waa jaalle ama hurdi cagaar midabkooda, kuwaas oo ay ka samaysmeen dhagaxaan cholesterol. Dhagaxaanta midab kala duwan waxay ka samaysan yihiin maadada bilirubin. Dhagaxyada cholesterolka midabka ay leeyihiin badana waa jaalle cagaar, kuwaas oo ay ka samaysmeen dhagaxa cholesterol. Dhagaxaanta midabka ka duwan waxay ka samaysan yihiin maadada bilirubinka. Xameytidu waxay u baahan tahay in ay dheecaanka bile-ka ay banaanka u soo bixiso si ay shaqadeeda u qabsato si habsami leh. Waxa dhacda marka qaar in dheecaanka bile ayna banaanka xameytida wada iman, tan oo keentay in dheecaanku uu ku bato xameytida gudaheeda. Arrintan ayaa sababta in dhagaxa xameytidu uu samaysmo. Yaa halis ugu jira? Dadka halista ugu jira dhagaxa xameytida waxaa ka mid ah dadka miisaankooda culus yahay, dadka cuna cunooyin ay ku badan tahay cholesterol, dadka qaba xanuunka sonkorowga, dumarka, waqtiga uurka, dadka da'da yar, dadka da'da ah gaar ahaan kuwa 60 iyo kor u sii dhaafaya, dadka qoyskoodu qaba ama laga helay dhagaxa xameytida previous history leh, dadka isticmaala daawooyinka hoos u dhiga cholesterol levelka. Ha hilmaamin inaad daawooyinkaaga qaadatid aadna ku qaadatid waqti. Ha joojin daawooyin aad qaadanaysid adigoon kala tashan dhakhtarkaaga. Waa maxay astaamo lagu garto ciladan ama xanuunkan? Waxaa laga yaabaa oo badanaa dhacda in qofka ayna ka soo muuqan wax astaan ah. Xanuunka ayaa la dareemaa markuu dhagaxa xameytidu xidho. Dhakhtarkaaga marka aad soo booqato ayaa laga yaabaa in uu ka arko sawirka X-ray ama raajada ama waqtiga qalliinka caloosha lagu sameynayo. Mararka qaar ayaa astaamaha laga yaabaa inay ka soo muuqdaan dadka qaar. Astaamaha soo muuqan kara waxaa ka mid ah xumad ama qandho, xanuun lama filaan oo soo booda oo sii xoogaysanaya oo laga helo ama laga dareemo midigta sare ee caloosha, inuu qofku yeesho cagaarshow, lalabo ama matag, saxaro sida dhoobada oo kale ah, indhaha ama maqaarka oo midabka jaalle noqda ama midabka jaallaha oo kale uu ka soo muuqdo, sida cudurka jaundice-ka oo kale ama jaundice-ka. Sidee looga hortagi karaa? Xanuunka dhagaxa xameytidu waa mid la maareyn karo dhibaatada ku imaan karta qaab nololeedka la xakameyn karo. Sidee looga hortagaa dhagaxa xameytida?
xanuunka dhagaxa xameytidu waa mid la maareyn karo oo dhibaatada ku imaan karta qaab nololeedka qofka la xakameyn karo. waxa adag in laga hortago dhagaxan samaysanka. sida ugu wanaagsan ee lagu yareyn karo amaba hoos loogu dhigi karo in dhagaxan uu ku samaysmo xameytida waxaa ka mid cunno dheelitiran oo ha ka boodin waqtigooda. cab biyo kugu filan adigoo ku dadaalaya inaad qaadato xaddi kugu filan. miisaankaaga oo hal mar hoos loo ridaa waxay tahay waxyaabaha aadka u saacida in dhagaxani uu samaysmo. talo guud, ilaali ballantaad la dhigato dhakhtarkaaga oo la socodsiyaalka ay marayso xaaladda caafimaad. la xidhiidh goobta caafimaad kugu dhow amaba la socod si dhakhtarkaaga haddii aad iska dareento astaamaha kor ku xusan. waxaa laga yaabaa in daawooyinka qaar aad qaadatid ama in aad ka mid tahay dadka halis ugu jiro xanuunka. mar walba la socodsii xaaladda iyo isbedelada aad ka doonayso daawooyinkaaga dhakhtarkaaga. bensound.com bensound.com